kala fadhigii saddexaad ee ay yeeshaan xubnaha golaha deegaanka ee degmada Berbera ayaa maanta ka dhacay xafiiska duqa degmada Berbera waxaana ka soo qayb galay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Berbera waxaana lagaga doodayay miisaaniyadii 2022 ee yeelan doonto degmada Berbera iyo waliba mashaariicda lagu fulin doono miisaaniyadaasi ugu horeyntii isagu waxa halkaasi ka hadlay kana waramay miisaaniyadaasi xogayaha dawladda hoose Cabdikarin Aadan Cadde ilaahay waa mahad leh هذا هو البحث كبدي كسيو مشاريع دي 2022 سيدي لوgu tala galay u socdaan ee aan saxaysan waxaynu ku jirnaa oo galeynaa 3 biloodkii dhexe mashaariicduna waxaan rajaynaynaa December markii galno inay sidoo inaga fulaan hawsha ugu ballaarnayd maxay tahay bishii u dambeysay inoo qabsantay waxay bas terminal station-ka oo runtii aynu maxay tahay heshiis fiican wada yeelanay shirkadaha basaska imkana shaqeynaya mashaariicda 2022 dhamaantii waxa markaati ka tihiin oo idinka mahadnaqaynaa kormeerkii guud ee aanu sameynay ee aanu gobolka degmada Berbera degmooyinka hoos yimaada aanu ku soo marnay muddo toddobaadka aqaatay waxaanu ka soo direynay boogeerahan idin hor yaala oo drive-ka koowaad oo isla eegi doono wixii aad ku dareysan wixii ka reebaysaan baahidii degmaduna ay halka ku dhantay intii ugu badnayd kormeerka waxa ka dhashay runtii inaynu ballaarino mashaariicdeennii qaybaha aynu ka shaqeyn doono insha Allah sanadkan waa caafimaadka beeraha iyo deegaanka jidadka waxbarashada amniga mashaariicda guud iyo gaadiidka oo ilaa 8 qaybood noqonaya markaynu eegno budgetkii 2022 waxa 115 bilyan sanadkan doriska aynu sameynay 2022 insha Allah wuxuu noqon doonaa 117 bilyan kororku wuxuu noqon doonaa 12 boqolkiiba oo ah sida sharcigu uu sheegayo inaynu kordhino dhinaca kale isagu waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin waxaanu ka waramay mashaariicda sanadkan ay fulin doonaan iyo waliba xadiga lacageed ee yeelan doonto miisaaniyadda deegaanka degmada Berbera fadhigiisii koobaad kal fadhigan maanta insha Allah taala wuxuu ka koobnaan doonaa 4 qodob oo laga qaybin doono qodobka koobaad ee ugu horeeya waxa weeyaan miisaaniyadda 2022 in golaha deegaanku ansixiyo dilaaha ka dhigo qodobka labaadna waxa weeyaan maadaama isbedel dhacay oo golaha deegaanka ay xubnihiisu hayeen 22 imikana 13 yihiin in dib u eegis lagu sameeyo gunada mudanayaasha qodobka saddexaadna waxa weeyaan sidaa ka warqabtaan gurigii sooyaal waatii xukuumaddu u baahatay si fiican ba runtii u xalisay waxaan aada ugu hambaleynayaa xubnaha ama maamulka sooyaal mujaahidiinta sooyaal oo go-aan fiican qaatay kaasoo ka turjumaya mustaqbalkooda waxay soo jeediyeen in dukaanadii yaryar ay laga ganacsan jiray ee kiradu ka soo geli jirtay inaan lacag loogu bedelin loo dhiso sidaa awgeed maadaama dhismihii loo hayo oo dowladda dhexe u hayso dhismihii innagana maamul ahaan degme ahaan waxaan laga doonayaa meeshii laga dhisayey kafulin ahaanna waxaan soo jeedinaynaa waan golaha deegaanka soo jeedinaa in loo ansixiyo in looga dhiso guryaha jamciyadda sooyaal hantida muguurtada ee degmadu leedahay ee xaafadda barcashi ku taalo xiraabo leeyahdo oo muddo badan gacanta degmada aan waxba aan ugu jirin kaliya aan laga fakirin sooyaalo qore waxa muwaadiniin kala ku nool isla muwaadiniinta ku noolna anagu ka filahaan waxaan soo diyaarinay inay ahaato suuq yare laga adeegto oo dukaanadaas oo dukaano qurux badan laga sameeyo dadka degan laga siiyo marka qodobkaana waynu kalfadhigu ku jira insha Allah taala oo arki doontaan qodobka afraad waxa weeyaan waxaan sameynay terminal bus station sina warkiisa waa haysaan xeerkii oo hordhaca
oo aan doonayn golaha deegaanku ansixiyaan kadib markay akhriyaan iyagoo ay ka howlgeli doonaan xubnaha golaha deegaanka qaybta shaqada leh arrimaha bulshada iyagoo la kaashanaya taloodaagna la sameynaya maxaan ku dhahdaa dadka ay khuseyso xarunta basaska maadaama xeerkan anagu aan soo diyaarinay xeerkuu soo diyaariyey sharci yaqaanada ku xidhan fulinta degmadu ay soo diyaariyeen uu majority ka hadlayo maamulka iyo wada shaqeynta dadka laakiin xeeraasaadkooda in wax laga daro waa laga maarmaan intaasaynu kalfadhiga xamse jaamaciyare telefishinka caalamiga badda cas 24 TV magaalada Berbera.